gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa tacsi ugu tagay qoysaska ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo halgamaagii Soomaaliyeed Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay oo dhawaan ku geeriyooday dalka dibadiisa gaar ahaan magaalada London. madaxweyne Sheekh Shariif ayaa marka hore ku hormaray guriga qoyska ra'iisul wasaare Nuur Cadde oo la dhigay buugga tacsida wuxuuna ka sheekeeyay taariikhda wanaagsaneed ee uu ka tagay isagoo dhalinyarada Soomaaliyeed u rajeeyay inay ka dhigan doonaan tusaale ay ku daydaan role model ka dhigtaan oo qofka intaas da'diisu tahay oo aan marna ka daalin inuu qarankaas taladiis wanaagsan ku biiriyo inay role model ka dhigtaan rajeynayna aad iyo aad mahadsantiin. dhinaca kale madaxweyne Sheekh Shariif ayaa degmada Xamarweyne ku booqday qoyska halgamaa qaran Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay oo isna ku geeriyooday magaalada London. madaxweynaha ayaa xusay in wali looga baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay sii wadaan halgankii wanaagsanaa ee lagu baadigoobayay qarannimo Soomaaliyeed oo taam ah. qoyska Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Sheekh Shariif booqashadiisa tacsida ah ee ugu yimid. Tacaaw waxa sharaf weyn noo ah anoo ku hadlay magaca qoyska in aan maaragtay sheegno in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu nala joogo oo ka soo qayb galay tacsidan in uu maaragtay yaani annagoo maxallaha maxay qoyskii oo u imaaday oo maaragtay Xamarweyne imaaday sharaf weyn inoo tahay. waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ah aad soo gelin walaalkii Sheekh Shariif aad iyo aad baa u mahadsan tahay sida wanaagsan sharafta badan adnoo karaameysay adnoo ciisaysay maanta wax naga maqan ma jiro aad baan kaaga mahadnaa boqol adiga iyo wafdigaada kula socdo waa amaanina aad u amaanina walaalkeen Cabdiqaadir Boolay oo runtii aan maqlaysiin inuu uga qayb qaatay halganka aqoontiisa aqoontuna waa wax ugu muhiimsan oo dad lagu xoreeyo waxaan aaminsanahay inuu qayb weyn ka yahay maanta qarannimada aan hadsanayno asaaskeedii inuu qayb weyn ka ahay taasaana keenaysa in aan isugu nimaado oo geeridiisa iyo tacsidiisa isugu nimaado qoyskiisana aadan runtii uga mahad celinaynaa in ay noo ka yimid qofkaas qaaliga ah waxaan rajaynaynaa inaysan halkaas ku joogsan Cabdiqaadir halgankii ay sii wadaan maxaa yeelay wali Soomaaliya meeshii aan jecleen ma joogto meeshii aan rabnay ma joogto halgankuna waa inuu meeshiisa ka socdo sida shala qayb uga ahaadeen maanta beelaha reer Banaadir beelaha reer Xamarweyne waxaa la danka rabaa halganka inaad ka qayb qaadatiin inaad mataqaanaa maxay ahaato ku halaysin cid kale ma aha maxaa yeelay dadkii fursad u helay magaalo iyo aqoon iyo xadaarad adinka waay waxaa la danka rabaa sida oo shala uga qayb qaadanayay halganka qalinkiisa uga qayb qaadanaya inaad meeshiisii aad soo buuxisin insha Allah tabaaraka wa taala waan kaga tacsiinaynaa dhimashada iyo geeridaas yani xanuun kale awlaadiisa walaalihiisa ahalkiisa qaraabadiisa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba ilaahayna waxaan uga baryaynaa naxariistii janno maxaan ku yiraahdaa lama jooga ee dunida laakiin dadku inay magac fiican ka tagaan oo la isugu yimaado waxa ugu fiican waay marka sharaf uga tagay dadka Soomaaliyeed sharaf uga tagay adinkana sharaf uga tagay sharaftaas marka inaysan baabiin oo ay sii socoto waa inaan ka wada shaqeynaa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay galaan marxalad ka duwan marxaladii hore isu furmaan iscafiyaan wada hadlaan heshiiyaan qarannimadooda xoogsadaan walaalnimadooda xoogsadaan taasaan sharafteena ku soo celi karnaa aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.